Assalamu alaikum, Jabril, and welcome to Somali Afli Radio. Waa mahadsantahay. Thank you brother. Waa dhawahay. And hadda waxaa ka mid ahayd ciyaartooyda loo xulay qaranka Soomaaliya under 18 Kenya baa tagtay. How was your dareenkaaga marka lagu wacay qaranka? Dareenkayga aad u fiicnaa, waa faraxsanaa. Markii la ii wacay aad iyo aad u farxay. Waxa waaye cid familkayga dhan iyo qof walbo they were all proud wallahi. I was so like happy. I had like wadankayga inaan difaaco oo it was a dream come true. Sax. Marka before soo baxday macalinka ma la hadashay oo mise qof kale la hadashay? How did that happen, the recruitment? Yeah, macalinka waa la hadlay maxaa lahaa cali shiin xatar hooyaday soo wacay waa la hadalnaa si xateer macalinka si fiican uu ila hadlay, qof walba si fiican ila hadashay. So I was ready to defend my country wallahi, laakiin waxa waaye sidaas ma naqan. Haye, okay, marka Kenya tagtay ma lagu soo dhaweeyay sidee ahayd? Kenya markaa tagnay waxa waaye waxaa diyaaradda waxa saarnay like more than 10 hours kabacdi marka diyaaradda ka tagnay oo hotelana la geeyey waxa waaye nastana la dhahay waana sana wax yar direct after waxaan horta ku markaa inta joogno waxaa nala sheegay in diyaaradda ku sii raacayna Kisumu like sidaas mayna naqan oo waxaa raacnay bus 10 hours like maybe aad ba u daalneen laakiin dib ma lahan waxyaabahaas caadi waaye si fiican nala soo dhaweeyey maasha Allah ani ahaanteeda laakiin صاحبياشي كل يجوا خاركوا لكن they were not happy والله لكن I was happy. I was like just looking forward to play. صح. So marka Nairobi ka tagteen diyaarad bas baa raacdeen ilaa Kisumu. Kisumu bas asla raacna aniga iyo kuwa Soomaali ka yimaada kulligeen bas bana was bas. Yeah, okay. And how marka the next day marka was it the first training the next day? Yeah, the next day like the all night bus asarneen, then we slept like 2 hours. After that training and directly like directly wallahi jet like everything لكن dib ma lahayn waa almitaan maalintaas ay ka xir coach waxa ay training oo ma ahan oo la qoray amal ma ahan only loo hal in lagu kala furto amal. صح. So maxaa sameeyeen that training session? What kind of training session behind? Wallahi I don't remember exactly لكن it was not that hard of a training maalintaas عادي. صح. So, okay. And how many days ba ka hada ciyaarta marka after the first training session? I think 2 days in ka hartay 3 days I think. Haye, so the next day training again ba sameeyeen? The next day I think ma ciyaarnay sadah runtii training match waxa u baxnay maxal lahaa koox Mofalaya. The match I started like all the players that came from Europe kullu waa ciyaareenay and America. Okay, maxal lahaa matchkaas waxa waaye banooni waxa imaaday moogta oo dheer صح oo long ball. صح. So I was not sure in banooni take it, so I just run banooni ina ninka soo qaado isku day marka macalinka oo labaad miya faa'iido uu qeylay marka ani waxa xasdaa marka macallin waxa dhahay banooniga hadaan hubin inaad testay karo waa khalad inaad testo u kacso sababtoo ah banooniga idaafo ninka goolka caadi free oo hela moogta. صح. So he was so furious at me like ani wax ma sheegi kartid. I've been a player before maxal lahaa I've done this in 30 years guriga hooyada aad that was so unprofessional.